guushu waxay kaaga baahan tahay qabashada ama aaminaadda 6 shay. 6dan shay haddii aad samayso aad noloshaada ku soo kordhiso waxaad noqon doontaa qof ku guulaysta wax kasta oo uu damco. Dhammaan dadka guulaystayna 6dan shay ayuunbay sameeyeen. Marka waxaa la yidhahdaa waa secret formula ama waa sirta qarsoon ee uu qofka guulaystay uu isticmaalay ee aanay dadka kale ogeyn. Qodobka koowaad waa waxa loo yaqaano hard work. Hard work waa maxay? Waa inaad shaqo adag qabato. Shay kasta oo aad damacday inaad noloshaada ku soo kordhiso wuxuu u baahan yahay waqti iyo dadaal iyo energy iyo inaad pricekiisa inaad u hurtid. Marka maanta haddaad damacdo inaad 30 jizoo quraanka aad xifdido go'aan ka qaadato waxay u baahan tahay waqti, waxay u baahan tahay dadaal, waxay u baahan tahay joogteyn, waxay u baahan tahay in noloshaada aad daily life-kaaga aad ku soo darto. taas markaa maxay kaa saaraysaa wixii loo yaqaanay comfort zone-ka ama xayndaabka deganaanshaha ku dareemaysay. marka hard work waa maxay? waa inaad shayga u dhaqaaqdo oo aad go'aankeeda qaadato in aanad marnaba ka nasanin ilaa intaad ka gaarhsan nihaayadiisa. marka ha aaminsanan waxa loo yaqaano nasiibka ee waxaad aamintaa in shaqo adag la qabto kadibna la helo wixii loo baahnaa. qodobka labaad waxa loo yaqaano patience-ga waa sabirka. sabir la'aanna waxba kuma suuragelaya. waxaad arki doontaa dad badan oo ganacsi bilaabay, waxbarasho bilaabay, koors cusub bilaabay. markuu muddo yaro wadaba waxaad arki doontaa qofkii oo iska joojiyey ama adiga laftaada ku soo maraysaa buugaag bal laga yaabaa inaad soo qaadato istiraahdo akhri kadibna aad ka caajisto. maxaa keenaya? waxaan jirin waxa loo yaqaano patience-ga ama sabirka. kaas markaa waxay keenaysaa in qofku uu degdegsado wax kasta. inuu maanta markuu bilaabo jiimta tago inuu doonayo inuu bil gudaheed jirkiisu isbedelo. sabirkii ayaan jirin. sabirka markaa waa maxay? wax kasta waxay ku soo bilaabmaan si aayar ah muddo kadibna waxaad arki doontaa shaygii aad rabtay oo aad ku fiican tahay ama aad haysato. qodobka saddexaad waa waxa loo yaqaano sacrifice. waa inaad huritaan samayso. huritaanka maxaynu uga jeednaa? tusaale ahaan oo kale markaa haddii aynu doonayno inaynu tusaalihii hore aynu sii wadno 30 jis ee qur-aanka ahaa inuu qofku xifdiyo, waxay u baahan tahay inaad u hurto timekaaga, waxay u baahan tahay inaad u hurto enerjigaaga, waxaa kale u baahan tahay inaad u hurto maskaxdaada iyo eegitaanka indhahaaga iyo wax kasta oo jibkaaga oo energy u baahan ama focuska u baahan ayay u baahan tahay inaad samaysid iyo inaad ku sabirtid. maalmaha qaar baad qur-aankii garan waayeysaa, maalmaha qaar baad garanaysaa, maalmaha qaar buu kugu adkaanay waqti badan kaa qaadanaya. marka waxa loo yaqaano sacrifice-kuna waa maxay? waa inaad u hurto. haddii aad ganacsi bilaabaysid waxay u baahan tahay inaad dhaqaalahaaga u hurto. haddaad doonaysa inaad koors bilowdid waxay u baahan tahay inaad dhaqaalahaagii iyo waqtigaagii iyo wixii oo dhan baad u hurtid. taas markaa waa maxay? inaad marka koowaad baad wax huritaan waxa loo yaqaano inaad samaysid. haddii aanad taa ugu talagelin waxba kuma suuragelaya. qodobka afraad waa qodobka aad u muhiimka ah ee dadkeennana inta kale way sameeyaan ee dadkeenna laakiin ka maqan. consistency-ga waxa loo yaqaano. consistency-ga waa maxay? waa joogtaynta. maanta go'aankii baad qaadatay, huritaankii baad samaysay, sabirkiina waad ku darsatay inaad shaygaa wax kasta oo u baahan yahay aad aad samaysid, laakiin waxaa kaa maqan wixii loo yaqaanay consistency-ga ama joogtaynta. joogtaynta waa maxay? inaad jadwal u samaysid. maanta qabo, berri qabo, maalinta ku xigta qabo, maalinta ku xigta qabo, ilaa iyo 90 days isku xiga. markaad shaygaa qabato waxaad la qabsanaysaa markaa shayga inaad joogtayso. noloshaadii uu ka mid noqonayaa. maalinta aanad samaynin waxaad dareemaysaa caajis. marka taas waxaa loo yaqaanaa consistency. taasaa waxay keentaa markaa haddii aanad consistency lahayn weligaa dhammayn maysid shayga aad bilowday. sidoo kalena haddii aanad consistency lahayn weligaa gaari maysid hadafka iyo yoolka aad leedahay. markaad maanta 2 cisho markaad yara dhigato haddaad haddana dhowr bilood kadib dib u bilowdo waxaad ku wareegaysaa un halka yaree dhow unbaad ku wareegaysaa. qodobka shanaad waxaa loo yaqaano discipline. discipline waa maxay? inuu kugu ilaaliyo inaad horu socod inaad samaysid. discipline-ku waa inaad timekii iyo jadwalkii iyo wixii oo dhan aad qaabaysid. consistency-gu waa joogtayn, maalin walba qaba shaygii. laakiin discipline-ku waa maxay? waa nidaamkii aad shaygan u qabanaysay. shaygaas wuxuu noqon karaa saynu sheegnay barashada qur-aanka. imisaad u baahan tahay imise page baad maalinta xifdiyi kartaa, imise saacadood baad u baahan tahay inaad intaa ku xifdidid, maxaad u baahan tahay kale kaa caawinaya inaad shaygaa xifdidid. ganacsigii iyo wixii kale la midka ahaana waa tusaalahaasoo kale baad ka qaadanaysaa. marka discipline-kuna wuxuu kugu ilaalinayaa in aanad dareemin wixiina aanad ku degdegin oo aad nidaamka iyo qorshahaad u dhigatay aad samaysatid. qodobka 6aad waxa weeye self confidence. self confidence wax kale ma aha, waa inaad naftaada kalsooni aad ku qabto inaad shaygan qaban karto, inaad awoodid iyo inaad tahay qof intuu waxaan qabto welibana soo bandhigi kara. marka inaad
aaminaadda naftaada aad markaa xoojisid. Taasi markaad si guud unbay dadku u sheegaan, laakiin lafteeda waxay u baahan tahay inaad baadhis ku samaysid. Waxaa laga yaabaa markaad maanta wax go'aansatid, aaminaadda naftaada aad ka aaminsan tahay inaanay shaygaa qaban karin, adigoo welibana si deeply u aaminsan, ayaa waxay keenaysaa in adigoo xataa shaygii ku fiican in aan lagu aqoonin bayaan waxaa taqaanid. oo aad hadhow dad badan waxaa jira la yidhaahdo waad ii dhuumatay inaad waxaan taqaana baan moodaynin, waayo qofkaas self confidencegiisa waxay keentay shaygan isagoo ku fiican oo top ku ah inuu isqariyo oo uu arka inaan waxaan ku fiicnayn oo kale, ama dadku ka baqanayaa, ama cidba maxaa la yidhahdaa criticize kugu samaynaysa iyo inay kugu yeestay iyo waxyaaba noocaas oo kale ah, ama wax kaluu ka aaminsan yahayba. markaas self confidencega waa maxay? in aad xoojisid aaminaadda aad naftaada aaminsan tahay, kalsoonida aad naftaada ku qabto, iyo inaad adigu isku tiraahdid shaygaa waad qaban kartaa. at the same time waqtigeedii waad u hurtay, patiencegeedii baad yeelatay, wixii loo yaqaanay consistency-gina waad samaysaa. 6 bilood kadib waxaad noqonaysaa qofkaas. wayna markaa naftaada qaabkaa ula hadashay. 6 bilood kadib waxaad noqonaysaa qof yaqaana intaas oo juz oo qur'aan ah, ama 6 bilood kadib waxaad noqonaysaa qof ganacsiga noocaasa leh. marka maanta waqtigaas oo dhan baad haysataa, enerjigii iyo timekii iyo kharashkii iyo waxay u baahnaydna waad huraysaa. marka naftaada inaad qaabkaa u dhiirigelisid. marka 6daa shay waa qaacidada qarsoon ee ay isticmaalaan dadka guulaystayaasha ah. adiguna waad ku beeri kartaa maanta haddii aad markaa fuliso. barnaamijkana markaa intaasaynu ku soo koobaynaa.